السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم dhamaan salaan kadib maanta waxaan ku tusayaa sida website-yada liskaga xiro oo blog loo saaro. Mathalan kasoo qaad waxaa u baahan tahay hadda YouTube camal waa kan uu shaqeynaya, waxaa rabtaa inaa computerkaaga aad ka xirtid boggan YouTube inuu shaqeyn waayo aa u baahan tahay. haddaa u baahatid inaa blog aad saartid website-yada qaar sida kuwa anshaxa xunxun, waxaa samayn kartaa ila soco. waxaa soo fureysaa my computer, waxaa haddana dooranaysaa local disk C open, folderkan imaanaysaa Windows laayo waa fureysaa. halkan waxaa dhex raadinaysaa folder la yiraahdo system 32 waa midkan system 32 aa ku qoran. waa fureysaa double click siinaya ama right click open waa dhihi kartaa. marka folderkan furto kadib waxaa kusoo baxayso folder badan. halkan waxaa ka dooranaysaa drivers folder la yiraahdo waa kan, waa fureysaa. waxaa kasii dooranaysaa halkan etc folderkan labaad etc, double click open. intaan ayaa kusoo baxaysa kadib waxaad dooranaysaa kan ugu horeeya ay ku qoran tahay hosts right click open waa fureysaa. sidan ayuu kusoo kaca. markuu sidan kusoo baxo choose the program you want to use to open it, folder macnaha door isku dheh barnaamijka aad ku kicin lahayd. marka waxaad dooranaysaa notepad inuu kusoo kaca u baahana kadib okay. sidan ayaa soo baxaysa. markay sidan soo baxdo halkan waxaa kuu qoran xisaabtan ah 127.0.0.1 horteed maxaa ku qoran local host. marka xisaabtan ayaa copy dhaysaa, hoosteeda waa ku qoraysaa si ay u qoran tahay 127.0.0.1. kadib tab ayaa taabanaysaa keyboardka, tab ama dart space waa dhihi kartaa, laakiin tab haddaa taabato waxaa isla markii si toos u imaanaysaa booska la rabo oo ay ku toosan tahay local host. okay tab waxaa ku qoraysaa website-ka arabta inaad xirtid. hadda tusaale ahaan YouTube ayaan xiraynaa www.youtube.com. marka intaad samaysid kadib waxaa soo furaysaa fail save ayaa dhehaysaa, not save as ma dhehaysid, save. okay marka hadda YouTube waxaa waaye blog ayaa saaran, ma geli kartid computerka. waa broweynayna marka aan soo kicino YouTube iska xirkan mid cusub ku dar kan iska xir. halkaas ku qor hadda YouTube waa kana ku diyaarsan enter. wuxuu ku dhahay arki doontaa ma shaqeyn doona insha Allah. aka no data received uu ku dhayaa. marka aan fiirino haddana YouTube kale YouTube hubinaynaa inuu xiray in kale aka u xiray. okay marka sidee u furi kartaa? markaa furaysid waxaa isticmaalaysaa wadada hadda aan soo marnay. hoos naga dhig wadada hadda aan soo marnay. halkan waatan intay ku taalaa waxaad sameynaysaa halkan YouTube aad ku qortay la ka tirtiraysaa, aad tirtiraysaa ilaa geeska. kadib waxaad dhahaysaa save. haddaa rabtidna keyboardka waa ka dhigi kartaa control s. okay marka hadda YouTube waa geli karnaa. markaan aan fiirino markaa aan soo kicino YouTube adkan waa midka hore iska xir mid cusub soo kicin. halkaas ku qor YouTube enter. sida kaa muuqato shaashada hadda YouTube uu shaqeynayaa. hadda wuu furan yahay, blog waan ka qaaday. adiga marka website-yada aad rabtid inaad xirto sidaas ayaa loo xiraa, sidaas ayaana ku furi kartaa. haddii macnaha ay wadadaas kugu dheeraatana waxaad samayn kartaa, waa kusoo gaabiyey oo qoraalka description-ka ayaan kusoo qori doonaa. intaas ayaa copy dhehaysaa, intaas xagga ku qoran c/windows/system32/drivers/etc
marka hadda waa ku tusinayaa copy aan dhahaya, kadib waxaan ku kicinayaa halkan start menu, run ayaan dooranayaa, halkaas ayaan paste dhahaya, meeshaan dhigaya cala tool, wuxuu igeenayaa folderki wax laga xirayo dhag kan isla markii waa soo kaca. marka kanaa furaysaa hostis, waxaad dooranaysaa notepad, kadib okay, intaas ayaa kusoo bixisa. markaa u baahan tahay inaad website aa xirto, tirada halkan ku qoran intaas tiro lambaradaas ayaa qoraysaa, hoosteeda aa ku qoraysaa xisaabta 127.0.0.1. markaa qorto keyboardka korkiisa tab ayaa taabanaysaa, waxaa ku qoraysaa kadib websiteka aa u baahan tahay inaad xirtid. kasoo qaadada waxaa rabaa inaa iska xiro google camal, google.com, kadib safe ayaan dhahayaa, fail safe. marka hadda google aan fiirinaynaa uu xiran yahay, ku dar bog cusub soo kaci, halkaas ku qor google, enter, ma shaqeyn doono, uu xiran yahay. waa kaa waa ujeedaa sida kaaga muuqato. sidaa ufuri karaa, marka waxaa ufuri kartaa sida hadda aad samaysay iska xirkan, meesha aad ku qortay google.com balooga saaran, waxaa ka tirtiraysaa intaas, waa ka tirtire, kadib safe ayaa dhahaysaa, mar labaad waa iska xiraysaa, kan iska xir. hadda google uu shaqeynaa, marka google soo kici, bug cusub soo kici, browserkaaga, halkaas ku qor google.com, wuu shaqeynayaa sida kaaga muuqato shaashada. hadda google uu furan yahay, wax blog ah ma ii saarna. marka salaamantiin, sidaas ayaa u sameysan kartaa website blog, sidaasna ayaa loo furi karaa. okay, subscribe, comment and rate. السلام عليكم.